قلب ونكسان أصحابك معنا مضموس كله كحران وعد بلاتفورم طبعا ما أنتوا حنال كان قبلنا برنامج وصوب أو بودكاستي وري وعد بلاتفورم لقبل الله وأنت جرتي ما أنت إن شاء الله برنامج كاني وري وحا أنكور شيء صندوقنا أستاذ كنا أستاذ شعيب أما شمع قفص لويا كانوا ما أنت برامج كانوا حنك قادرينا أريمو خصوصا وباهنتا أما فرابوشة إيو سامين تريكولا هاي سياسة الصومالية أستاذ كبسود وين يا طبعا أستاذ ك أنتي تقاني أنت أقوانين با أستاذ أولون دولار نعيب بدن يسوق جيران أريمو بوشة يحيى بدن ومجتمع محترم له مركز أستاذ شمع كبسود وين يا أستاذ سودو إن شاء الله وما سمتها أستاذ سعيد شرف أيتها كلي إن بودكاست هوري وعي بلاتفورم عن قيب كنقضة سأركو شيء مجاي شعيب عبد الله هذا دتك شمعي هو عن باكرينكي هو دكتور عافمات وحد كل أبناء وسوا حولته كشغين تعليمات بالشدة إيو كسو مقشدة وأديجسته بالشدة قيبة كل الدول موضوع عن ما أنت عن وظف فلنقين دونا طبعا أنا مرتكومي مرتي أوضح النهاية ولا أنا هذه جبا عوعية بلاتفورم أو النهاية ديار وايد سودو وفرح سن هاي برامج كينا طبعا سان عنوان كوب بحنيبة برا بالشدة سياسة هرتا إنتان لجارين سياسة وحكا قف كستومان تجوبه أو سوشيال ميديا استو أما برا بالشدة كجور ووري سفيانا absolutely هذا وانه marka qof kasta access wuxuu leeyahay warku soo helo wuxuu sheegi karo wuxuu ka hadli karo oo furan tahay Soomaaliya oo marka hadda joogno siyaasiyiinta hadda joogto xilalka hayo arrimaha siyaasadda dalka ka jiro warbaahinta waxay noqdaan kuwo natiijo la amaani kara ka soo baxa mise waa justi warbaahin oo maanta dhacdooyinka maanta noo soo gudbiyo wala la xiray meel la aaday madaxa imaaday marka arrimaha badan su'aashaas arinteeda taagan maxaa ka dhilay Soomaaliya hadda marka la joogo كمية جوجل كم مجالات جوجل اسكو access هستان الدنيا كلا ده وحن وكلا كقبضين هنا قفبه وحبه access وهلجر مركا ومحن فلانقينا نوع وحن فلانقينا سياسي سياسة برب الشاء وكلا قاعدنا هر سومالي سياسي وتقع نوع قفك سياسي جاه حد سومالي جوجل أنا جا أركتده عنك قبض واحد هاي لمد معها قفك سياسي وطن كلا جوجا معنا دان أقون iyo dhan dadnimo maxaan ku dhahay structure ku qofka siyaasiga Soomaaliga uu sameeysan yahay markii lagu cabiro wadanka rabtid aad soo qaadatid isku qaanad ma galayaan dunida kale siyaasigeeda waa qof diyaarsan nidaamsan qaabaysan wuxuu ka hadlayo saameyn ay leeyihiin for example haduu wax wanaaga dadkii farana hore laga sameeynayo haduu wax hal diiday yiraahdo la diidayo hadii wax la fuliyo dhaho la fulinayo anaga laakiin waxa noo soo batay maalmahan siyaasi asagaba iska warqaban inuu siyaasi yahay tusaale maanta arin buu sheegaya bari arin isla arintii shalay uu sheegay cagsigeeda ayuu maxaan ku dhahay qofka noocaas oo kale oo siyaasiga horta xaggan dhigaya kama hadlayo aniga laakiin saameynta siyaasadda ee baraha bulshada iyo warbaahinta si guud marka loo yimaado dabcan warbaahinta door ay leedahay qaab dhismeed ay leedahay xeerar ay leedahay wasaarado ay leedahay agaasimayaal ay leedahay tafaftiriyaal ay leedahay hawlo badan warbaahinada ay haystaan maxaa nagu soo kordhay ka bulsho ahaan marka bulsho ahaan waxa nagu soo kordhay horta bulsho dhimataanahay qaybo badan u dhimatay wixii la rabo loo sheegay haddana qofka u sheegay naga filanayo wuxuu sheegay dhan inaan sideeda u qaadano macna oo kama ma falcelin kartid warkaas sidoo hebel u yiri way qaldan tahay saana sax ma dhigi kartid waa xiiqsan yahay wuu qaylinaya indhuu farta ka gelinaya waxaan ay idin sheegay sideeda duuduub ku qaatulay baar xataa ma dhahay macna laakiin wuxuu ilowsan yahay bulshadani inay ka aqoon badanta ka network fiicanta ka xiriir fiicanta ka badan tahay garashada wuxuu ka sheekeynaa marka qaar tusaale ahaan qof baa wuxuu ku falanqeynayaa deegaankaad 30 sano joogtay buu qof weligiis lug dhigin wuxuu rabaa inuu wax kaaga sheego inuu xun yahay inuu fiican yahay wuxuu rabaa ha noqon sidee dareemaysaa markaad
adigoo beertaadii xoolahaagii magaaladaadii dhex jooga uu qof kale meeshaas maalin xataa lagu martisoorin uu ku falanqeynayo arrimeeda macnaha tusaale ahaan waxaan ka wataa dunida hadda dagaal aad loo hadal hayaa jiro oo Iiraan iyo Mareykanka macnaha doorka warbaahinta Soomaalida annaka waxaan iskaga waramayna kaliya arrimaheena laakiin dunida kale xitaa waxaa la waayay walow hal iyo laba aan arkay waxaan weynay ama aan isleeyahay maxaa ku dhacay waa isweydiin wadankan wariimaba qabo miya warbaahin ma jirta miya xataa waa isweydiin tusaale waxaan ka wataa dagaalkaas saameynta leh oo intaasoo adduunyo oo wadan oo cir iyo dhul dagaalka la iskuga qaaday qof Soomaali oo si rasmi ah ummadda ugu soo gudbay wuu ku yaraa waxay ahayd dagaalkaas bulshada in nalaga dabageeyay ahayd macnaha bulshadana adduunyada ku xiranay moogtahay in looga sheekeeyo warkii la soo tafaftiro af Soomaali laga soo dhigo bulshadii loo sheegay ahayd badana wuu nagu yaraa isla dagaalkaas hadaa si fiican u fiiriyo cashar waxa iga baxay aad u weyn tusaale ahaan propagandada ku badan bulshada waa aragtay dagaalkaas xabadda iyo waxa la isticmaalay waxa ka badnaa dagaalka warbaahineed ee Iiraan lagu qaaday macnaha oo Mareykan fangareynayo CNN la oo dhul waxa rabtid wariye ama idaacad sheeg against Iiraan ay ahayn markii loo fiirinayo propagandada laakiin arintii hadda siyaasiga aan ka hadlay marka ku cabiro hal nin oo Abbas wasiirkan arrimaha dibadda ee Abbas Karachi maala wasiirka arrimaha dibadda Iiraan kaligiis ayaa wajahay wixii warbaahin caalamka socday macnaha maxaan ka goleeyahay taas Iiraan waa hal warbixin ka soo bixisay hal qof sheegay saxayna intuu sheego waxna lagu ma dirin waxna laga ma dhibin adduunyada marka waxay noqotay the whole world against hal nin wasiirkaas arrimaha dibadda maxay dadku ku qanceen waa marka meeshaan uga galeeyahay qofka Soomaaliga laga laayay dadnimadiisa lagu qancay aqoontiisa lagu qancay kalsoonida wadankiisa ku qabaa lagu qancay qof kale oo Iiraani ah xataa TikToker ah ama social media ka shaqeeyo ka hadlay arrimaha Iiraan ma jirin ninkaas wuxuu noqday sooska saxda ah ee laga helay legitimate macnaha warkiisa wuu sugnaa war la isku haleyn karo ahaa waa lagu qancayaa marka ma fahant macaani qaraarba uu soo tabinay ninkaas dabcan haddii dad laga dilana dee uu sheeganay qofkaas uu dhintuu leeyahay hadday guul gaaraan uu sheegay hadday jab soo gaaro uu sheegay marka waxaan ka wataa qofka siyaasiga intaadan bulshada la hadlin horta adigii ma qeexan tahay oo sida ninka odayga oo kale aqoonyaan lagu kalsoon yahay wadankiisa iyo dadnimadiisa iyo erayadu ku hadlaayo u balance gareysan yahay ma tahay mase caawana bulshada warbaad u sheegay subaxina war kale aad u sheegay galabtina war kale aad u sheegay taas waxay dilaysaa heerka siyaasadeed anaga naftarkeena aqligeena lagu ciyaaraya meel raacid ma garanaysid macnaha dadka elite ka ahaa waxay u hadlayaan si aan graafkooda waa up and down hadda waa fahmay tusaale hadda oo kale aniga oo kale hadaan aragtida oo kale ku sheego mesela mawduucaas warbaahinta saameynta ay ku leedahay mesela baraha bulshada ay ku leedahay siyaasadda tusaale heesa ognahay baraha bulshada waxay gaar la tahay waa iclaam oo xor ah wuxuu kaga duwan yahay warbaahinta ay dawladda isku lahayd qofka mesela dawladda biisho xarunta dawladdu degan yahay mu'assasad la yaqaano oo legitimategeeda ay ku bees gareysan tahay jiha muayyan ah laakiin warbaahinta baraha bulshada waa meel furan oo qofku uu ku saameyn karo wax kasto asagoon hoos imaanin cid gaar ah مثلا tusaale saugna hada Mareykanka oo kale hada waxyaabaha loola dagaalay TikTok oo kale aad loola dagaalay in xataa la iibsado hada lagu dadaalo waxay tahay wuxuu noqday meesha kaliya aqliga Mareykanka si openly oo siyaasadda adduunka looga wacyigeliyo loogu jiheeyo dawladda Mareykanka marka waxay la qabsatay inay warbaahinta gacanteeda ku jiraan laakiin waxa soo baxday in waxyaabo ka madax banaan dhalinyartu waxay siinayaan xogaa adduunka ka jira qaso waxa ka dhacayo adduunka kale waxa ka socdo howlaas dhan inay si free ku helaan iyadoo dawladda xakameynayso automatically saameyntii waxay noqotay mid oo aysan ayaga qorshahooda khilaafsan ay noqotay marka tusaalahaas marka Soomaaliya soo qaadno warbaahinta Soomaaliya dadku ku jira oo kale arrimaha siyaasadda ay ka hadlaan waxay uga hadlaan ima waxay kala qaybsan yihiin dad war on soo tabiya page-kooda ama goobtay ku leeyihiin baraha bulshada waxay soo tabisaa war wala kala jirto warkaas oo naftirkiisa inuu sugan yahay in kala aan la weyn ala farfay gareeyay waxa kale oo soo laabeeyo maamulka markaas jiro
qolooyina wuxuu ku samaystaa oo social media ku jira oo lacag siiya marka waxay faafiyaan propagandada ama wararka ay rabto dawladda inay fariinta gaarto marka shacabkii wuxuu u dhaxeeyaa qolo war caadi iska tabiso sidii iska soo qaadato TV oo digital laga dhigay bas qolan waxa waaye ajendo waxay ka shaqeysaa maamulka jooga iyo ha aadan mucaarad ha aato dawladii marka mana ahayn in la saameeyo oo saameeyo sababta awood waxay u leeyihiin inay xor noqdaan ayaga systemkooda u sameeysan qofku maanta wuxuu sameyn karaa hadduu meesha magaalada pressure ka dareemo inay iska safro Nairobi ama Addis Ababa ama iska tago Soomaaligiisan uu la hadlo siyaasaddiina saameynta ugu wado marka marka fiirisid Soomaalida siyaasadeeda yani baraha bulshada yani dadka maamula waxay ku saameyntooda ku xiran tahay markasta maamulka shakhsiyaad waxun bay ka xiran tahay laakiin warbaahin xor oo u fakirto inay shacabka Soomaaliyeed u badan yihiin dantooda fiirsadaan uma badno qof warbaahinta ku jira oo gaaraan baraha bulshada oo ka fikirayo sideen shacabka Soomaaliyeed fariin saxan u gaarsiiyaa sideen مثلا qaladaad maamulka dawladda Kenya u tuusiyaa arrimahaas haday jiri lahaayeen xilligan inta Soomaali inta ma joogi lahayn tusaalaha ku watay waa aniga ku dhahay moogtahay waxaa xumaaday anshaxani aragtideeni bulshadeeni waxaa laga dhigay sidii xoolo xero ku xareysan oo kale hadba meeshii loo didiyo u didayso bulshadii way qabatinsa marka way qabsantay macna qabatina ku dhacay oo ah war kale lama haye warku ustaad Cali ustaad Saad sheega iska qaadanayna macna meel loo verify gareeyo ma jirto numberka kale oo aad muhiim ku ah wuxuu yahay wax isbarbardhiga ma jiraan mesela 10kan siyaasi ee ka hadlaya arrimaha siyaasadda ka soo qaad doorashooyinka aad Soomaaliya hadda loo hadalhayaa ma ogtahay xilligeeda ku dhacay kuma dhacayso xagga inta so what aniga markii aan ahay qof muwaadin ah damiir leh aqoon-yahan deegaankan aan joogo 10kan siyaasi sidee Calin uga tagaa Xasan u qaataa maxaa isbarbardhigaya waxay luminayaanba qofka daawanaya inuusan qof been aaminsan ani saas oo arkaa badankood waxaan ugu arkaa dhacdooyin aan joogno oo marqaati ka nahay ayaa waxa lagaaga dhigaa waxaanan jirin de ma aqbali kartid marka lagu dhaho X baa la wareysanaya waxa jirto warbaahin badan oo hadda wareysiyada aad u soo badaysa moogta qofkan shakhsiga aad wareysanayso inaad adiga figure u arko laakiin meelaha qaar qof aayad caagbiya u dirsanay ma laha they don't care ama wareysa ama wareysan saameyn ma bay ugu lahan hadii laakiin hadana aad inta dhageysato aad aqoon fiir dad baa waxa loo dhageystaa adduunyada hadda podcast-ya ka jiraan wareysiyaa jiraan arday baa ku taxan jaamacadaha laga shidaa waa la dhageystaa ma ii sheegi kartaa wareysi maanta inta la soo qaado jaamacadaha kamid ah ardayda inta loo shido la dhaho maanta bal 10 ka barto baalkan xitaa ardayda ka soo qaad barata communication ka barato ama warbaahinta barato 10 ay practice ka dhigtaa xataa male because waxa ku jiro war iyo sheeko isdiidan isdiidooyinka baa mararka qaar meelaha ku qoraa waxa isdiidan qofkan markuu xilka hayana qof buu ahaa markuu ka tagana qof buu ahaa hadda oo baalamoonda leeyahay anaga meelaha nala fadhiyana qof kale waa bari markuu xil helan qof kale uu noqona war shantan qof marka ke role model laga dhiganayo la soconaa marka ma midka baahana ma midka sharuurka helaa ma midka danta kursiga laha waxaan uga leeyahay saameynta siyaasadda warbaahinta especially khaasatan baraha bulshada maanta say ku socoto aniga waxaan dhihi karaa meesha ugu liidata wax weyn kuma darsanayso meesha ugu liidata waa tusaale ahaan war aad tabisay baa bulshadan qaxinayso magaalo dhan ay guurinaysaa way raraysaa macnaha saas baa la yiri Soomaalidu ma taqaana la yiri weligeed ku joogta waa la yiri lagu shaqeyn jiray moogtahay la yirigiya hadda inta TikTok la furto kama hadlayno anshaxumadii iyo barahi bulshada kale iyo saameyntooda iyo hawlay kale kama mawduucan kaliya siyaasadda hadaa u maato kaligiisa meel haysan macnaha hada khilaafaadka siyaasiga jira waxa laga yaabaa dhibaatada mesela siyaasiyiinta wax ka dhaxay inay wax soo weyn ahayn laakiin shacabka maadaama warbaahinta intaas ay u sheegayso waxa laga yaabaa shacabka xitaa inuu negativity-ga bulshada zaid noqoto fiiri inuu anshaxa lumo waxa ku ogaanay Facebook baa waxa isku marinaya dhowr wasiir waa wasiir dhan oo ummad hogaaminaya xil maqaam sare ku fadhiya bulsho iyo horumarkeeda iyo wadooyinkeeda iyo ceelasheeda iyo aqoonteeda iyo
abaaraha insa uga bixinaan laga sugayay wuxuu soo dhigayaa post ka mid kalena wuxuu ugu jawaabayaa wax laba adiga marka waa kanaaye labadan qof kaali ka dhaadhici bulshadan inay yihiin indheergaradka bulshadan wasiirada bulshadan agaasimayaasha bulshadan xildhibaanada bulshadan inay yihiin marka si guud Soomaali wax badan ka dhintay si khaas ahna siyaasiyiinteena waxaan dhihi karaa in la laba badan baa dhaxtaalo heer waxaa la gaaray hadda la iska caayo macna qofkii mas'uulka siyaasiga ahaa heer wuxuu marayaa si bareera u aflagaadeeyo qof dhan oo xil haya for example qofka markuu xil hayo title buu leeyahay moogtaa marka adoo dhihi kara wasiir X ama wasiirka hebel ayuu wuxuu dhahayaa qofka magaciisa toos ku waray X buu leeyahay macna ninkii basada lahaa buu leeyahay hebelkii buu leeyahay maxaa fariina diraysaa in adeer marka maxaa bulshadan u sheegaysaa maxaa laga dhigaysanayaa maxaa horumar laga wada shaqeyn karaa marka waana wax hadda dhaqan noqdayba waxa intaas noo dheer bulshadeena inuu dadnimada ka dhintay waxaad ku ogaanaysaa albaab baa waxa ku kulmay nin professor oo jaamici ah oo PhD holder ah oo raba qofka mas'uulka ah albaabkan xagga ka xig cidoo rabtaa noqoto madaxweyne wasiir agaasime isla albaabka waxa imaanaya wiil yar oo tiktoker ah ama gabar yar imaanaysa oo saameynta ay leedahay anigu ma aqaan waxa lagu cabiray oo xoghayntii wasiirka ama xoghayntii qofkaas oo ka hormarinayo professorki macnaha iblaayo soo gudub alale sidee marka professorkan oo ama qofkan Soomaaliga kontonka sano jiray 60 sano khibrad socoto ah oo wasaaradda halka saac uu joogay wax badan oo aragti ah ku biirin kare uga doorbidaysa wiil yar ama gabar yar oo saameynta ay leedahay dabcan bulshadu way u baahan tahay comedian ah entertainment ama madadaalo iyo waxa rabtid u bixi sidee isku barbar dhigtay cilmi noocay la isku barbar dhigay hadda pointigaas oo kale adag ku watay waa dhacda life way dad aqoon-yahano oo lecture loo keenay oo waxa arkaysaa hal mar kaamirooyinka loo leexinay wiil ama gabar yar hoolka soo galay oo attentionki dhan qaadanay waxa keenay ustaad hadan ka dhax galo tusaale oo kale mesela hadda waxa jirto yani baraha bulshada maanta horta thaqaafad la haysto thaqaafada oo viewska ama dhaqanka muuqaalka tusaale hadda mesela hadda koora maraan xasuustaa ninaan qof waxaan ku dhahnay aqooyahan hebel muuqaalka dub fariimo wanaagsan de umad u faa'iideynaysa wax fiican u soo gudbinaya markaas wuxuu dhahay ninkaas dad badan ma daawato marka waxa iga roon qof Soomaali yani ka hadlaayo oo views badan helay sababtu wuxuu dhahay aqooyahanka aniga ixtiraam dare uma haye laakiin muuqaalkayga ma gadmo marka tii kale marka ku apply gareeno siyaasiyiinta qofka siyaasiga maanta wuxuu danaynayaa muuqaalkiisa sawirkiisa aragiisa in aad loo baahiyo yaa baahin karo waxa baahin karo cunugaas yarka maanta wuxuu leeyahay waxaan la kulmay wasiir hebel xafiiskiisa ugu tagay waxaan qabtay marka hadda pointiga ma haba u tagay maxay ka wada waxay ka hadleen malaha wasiirka hadda u fiirso wasiirada hadda u fiirso ama siyaasiyiinta u fiirso baraha bulshada page oo TikTok aato ama page shakhsigooda aado muuqaal markii miya story ku jiro hees saaran oo lugeynaya oo hees la saaray markii alaabtaas waxa sameeyay inta laga keenay waxa keenay dhalinyartii oo baraha bulshada ku jirtay TikTok ku jirtay ayaa keenay marka mushkiladu waxa la kala saari waayay dadkan TikTok iyo baraha bulshada ku jiro oo dhalinyarta ay wataan way jiraan laakiin siyaasadana xarumaha siyaasadda xarumaha dawladda professional yaalmo waxa jira influencer oo way kala baxsan yihiin TikTok ama baraha bulshada si guud dad waxa jiro caan ah wariyaal caan ah oo warka ay soo dhigaan uu sugan yahay oo boqolkiiba boqol aad soo xigan kartaa jira oo lagu kalsoonaan karo waxa kale oo jiro baraha bulshada sida bulshada u kala qayb u tahay ayaa baraha bulshada waxa jiro dhalinyaro ku howlan horumarinta arrimaha bulshada laskuma haysto inay saameyn leeyihiin views haystaan milyan 2 3 4 7 ay haystaan which is okay cid ku haysata mala nin dhalinyaro dadaalayo oo bulshadan laakiin muxuu gudbinayaa waa fariin noocay gudbinaysaa hadii professorka PhD holderka oo albaabka u taagan madaxweynaha aad marinayso nin dhalinyaro ah oo laga yaabo inuu cunto yar ama bahal yar sida loo xayeysiiyay ku caan baxay fariin noocay bulshada u diraysaa ninkaana qofkan ka muhiimsan u diraysaa macna si saxda number 2
bulshadan waxay noqonaysaa bulsho qofka noocaasa dhageysato ugu dambeynteedii horumarka iyo waxa aan sheegayna maxaa ka sugaysaa waa la isla wada dhimanayaa moogtahay saameyn ma leedahay baraha bulshada haa saameyn wanaagsan ay leedahay dhaqsaa warkii la helayaa meel walbuu yaalaa xog oo waxay noqonaysaa adi hadhow tifaftiro ama raadso runteeda iyo beenteeda laakiin fariimihii dhaqsay ku soo gaarayaan internetka meel walba yaala soo yaal dhanka kale laakiin saameyn xun ma leedahay haa saameyn xun aad u xun ay leedahay tusaale ahaan wararkan la sheegayo oo beelahan isku baabi'inayaan ee labadan beel ee deriska isku baabi'is canug yaroo tiktokera meel galay baa reer hebel baa ninkaa dilay buu soo qoray ninka kale fiirsanaya ku taxan muxuu sameynaya qorigu dhigta qabanaya reerka kale u baabi'inaya meeqa qof oo magac ay mansab leh bulshadan bara bulsho darteed ku dhintay oo dadku aysan soo sheegin dad waaweyn waxaa la yidhaha hurinta xumaanta bulshada allah dad baa u samaysan in bulshadan xumaanteeda un saliid iyo bensiin lagu shubo oo la horiyo tusaale ahaan fatahaadaa dhacaan abaaraa dhacaan colaadaa dhacaan laakiin dhinaca kale waxaas lema dhacaane horumaraa dhaca jaamacadaa la furaa iskooladaa la furaa waa la qalanjibiyaa wax soo saaraa dhaco beeraha way go'aan soomaali xataa kuma arkaysid siday abaarta u sheegaan beeraha markay go'aan barwaaqada ma sheegaan waxaan sanadkan 10 jeer abaar la sheegay Soomaa okay deegaankan ka dhacday war halkan mar barwaaqo inay dhacdo deegaanka lagu doogsaday ay dadku qurxonaadeen xoolihii ay qurxonaadeen badarka uu soo go'ay bulshada ma la wadaagtid ha loo wada duceeyay maxaad u sheegay kaliya xumaanta intaan leeg isku soo duuduub يعني waxaa leedahay warbaahinta oo baraha bulshada dadka xarumaha dawladda jooga wali waxa waaye waxay ka gaarayeen dadkii la rabay inay xarunta bisayl ma jiro oo ah inay bulsho daawanayso kala duwan ma qabaana isle tusaale yaraan kuugu darayaa qofkan xafiiska ku qaabilay dhalinyarta ama hala sawirto ama hala baashaalo waa qayb kamid ah bulshada dhalintu cirka kama imaan wadan kalena mala kanay leeyihiin adaan wasiir ah walaalo waqtiga aasiisay mid la eg bulshada qaybteeda kale maxaa u diiday maxaa culimo lagugu arkeen ganacsato lagugu arkeenin beeraley lagugu arkeenin garaashley lagugu arkeenin dadka xamaalatada lagugu arkeen dhismayaasha dadka bulshada kama tirsan waxay u isticmaali karaan mashaariicda horumarineed markaad fulinaysid ma soo kaxays xarag jarba meel ka dhacay ma soo kaxays ما soo kaxaysid markii aad booqanaysid marka rabtid hatta campaign inay shacabku waxun ka wada qayb qaataan ay ma lacag basiisidoo dhahdid fariintan wanaaga ah bulshada gaarsii midalan tusaale ahaan wadanka hadda dhowr 20 wasaarada ka jiro wasaarado waxaa jiro to be honest aniga hadda maba aqaan waxay qabtaan aad wasaarad baa maqlaysa aad u magac culus laakiin hadda doorbiinka saartida microphone maanta bulshada la dhacmartid wasaaradda X ama heblaayo wasaaradaas maxay qabataa weydii qofku ma jirtaa horta in lagu dhaca laga yaabaa moogta bal markuu ku soo booqdo ma dhahdid wax qabadka wasaaraddeeda bulshada la wadaag symbol okay waa gartay marka meesha aan ugu goleey waxay tahay fariinta maanta rabo inaan uga faa'iideysto bulsho ahaan wax badan baa naga qaldan waxaana u sabab ah waxaan maqlayno iyo waxaan arkayno waxaana controlno ma wali baraha bulshada waxaana ma controlno meelay naga imaanay ma garanaysid cid soo tafaftirtay ma taqaanid war adiga kala dhaxbaxa ayaa sidii ku badal ugu soo tuuraya ma fahad marka saameyntaasna de waa garan kartaa meesha la egta waa gartay ustaadi tusaale hadda mesela arintan oo hadda dadka oo saameynta leh laga doorbidayo mujtamaca dadkii waxgalku ahaa khubaradii dadka taariikhda ku lahaa aqoonyahanka iyo dadkii kale ee bulshadan u soo halgamay ama wax meel weyn kaga jiro sababaha isleeyahay waxa kamid ah mararka qaar loo doorbidayo waxa kamid ah mesela dawladdu waxay aaminsan tahay manaha masaadirteeda ama warbaahinteeda rasmiga ay leedahay meel ma gaarto waxay u baahan yihiin marka dad oo yani codka meel gaarsiin karo dibkii waxa waa marka dadkii way u wacdeen laakiin uma isticmaalin meesha saxda ah tusaale wax kasto wax qabad dawlad sameys hadii la dhihi la dhalinyartan baahiye farin kasto dawlad wanaagsan gaarsiin shacabka wax fiican ahayd teeda kale hadda u gudbo tusaale oo kale pointiga kale ee baraha bulshada waxa fiicnaan lahayd inay Soomaali lahaato kale warbaahin soo dhageysata siraha dawladda waxa soo socda halisada dadku soo wajahan siyaasiyiinta maxay qabtaan
لأنه سياسي أصلا اللي بيسون كاميرا لقى دوباي أو ما investigative وحال ورباهين تعلمها journalism السنة دولتها وبارتان ورباهين مدح بنان وحاجرو مواضيع iyo dabagala arrimaha wadanka ama waxa u dhiman ama hormaryaane مثلا corruption-ka u badan ama sida bulshada looga lunsado mashaariicda iyo warbaahin soo bandhiga siyaasadda ka imaanaysa mashaakilka siyaasiga goobaha dawladda saraha ka jiro shacabka laftirkiisa xaq wuxuu leeyahay inuu ogaado dadkan siyaasadda ku jira maxay u soo wadaan hadda tusaale kale waxaa jirtay dawladda Soomaaliya ay mar Itoobiya mar xaalad ka dhaxaysay Masar waxa la sameeyay taxaalub la sameeyay arrimaha Soomaaliland waxyaabo badan iska jiro marka shacabka siyaasadda dawladda wax un ba istasriix iska soo bixisaa warbaahin war saxaafadeed bas cid war haysa ma lahan waxa socdo madaxda qabtaan hadda marka waxa bilowday saani leeyahay inay siyaasiyiinta laftirkooda waxay waagi xagga joogeen ay sameyn jireen oo shacabka ogeyn inay microphone la soo fariistaan fadhi ku dirada warbaahinta way kala duwan yihiin aad iyo aad anigu kama bahadlayo horta warbaahin way taalaa wadankan warbaahin la'aan kama jirto xog la'aanna ma jirto adeeg ama tasjiilaad ama facility xumana ma jirto waa wadanka waxaan kugu bilaabay meesha tagtidba internet iyo mobile ka helaysid aad iyo aad wadamo waxaa jira internetna aadan arkin mobile smartphone aadan iibsan karin sida marka xog labadaas ay available u yihiin meel walba u yaalaan waxa fudud in qof walba oo wixiisa diiwaan gashto horta marka Soomaaliya maanta siyaasi iyo siyaasad iyo warbaahin markii la dhaho ani waxa isleeyahay wax isku danaysi ah oo isku dan ah oo isku qaanad ku jiro ayay noqdeen yani shacabka fariinta shacabka loo gaarsiinayo waxa ka muhiimsan warbaahinta iyo siyaasiga si ay iskula jaan qaadaan maslaxadooda simple maxaa loo waayay dad independent ah macnaha oo meelna ku tirsaneen oo raba inay mowduuca soo baxay ay bulshada suu yahay ugu sheegaan bulshada ha qaadato bay qaadanne maxaa ku kalifaya in lacag la siiyo maxaa ku kalifaya in la iibsado in qofka heer waxa mareynaa hadda warbaahintii aad loo qabiilay macnaha waxay maraysaa qabiil kasta iyo siyaasigiisa iyo arintiisa ay maraysaa hadda ama telefishan waxa jira reer iska leeyahay reer iska lahaa tusaalahan ninba anagoo doodayno aad buu wuxuu u falanqay magaalo kale oo uusan weligiis tagin marka uu igu xanaaqay marka waxaan ku dhahay saaxiibo adi maxaa ka galay deegaankaas degmadaas iyo magaaladaas iyo gobolkaas warkooda xataa amaama iska siisid ma iska diis meel ay ka soo gashay malaan iyagu wariyaal way leeyihiin warbaahin way leeyihiin say rabaan u soo dhigtaan maxaa adiga wuxuu rabaa inuu narrative-ka ama sheekada uu asaga rabo uu u dhisay deegaanka inay isla dadka deegaanka sideeda u laqaan oo u dhuuqaan rabaa macnaha mana u shaqeynayso waana waxa micno tiray qofka waxa micno tiray qofka irregularity-ga macnaha af Soomaali waxa lagu dhahaa isdiidooyinka isdiidan macnaha qofkan 24 saac kasta hadii la wareysan lahaa 24 saac wuxuu sheegi lahaa 24 waro isdiidan ya waxa intaas noo dheer ninbaan waxaan weydiiyay marka dadka wareysanaysaan maxaa ku xulatin in wariyo caan oo saaxiibana marka wax kale ma ahan barnaamijkan waxaan ku arkay maalinba qofkaad isleedahay wax laba shay uma dirsan leh baa la wareystaa macnaha marka waxaan ku ri saaxiibo maxaa lagu xushaa no wuxuu yiri bulshada inteeda in dheer garadka ahayd ee wax taqaanay ee aqoonta lahayd oo mowduucan sidii la rabay u falanqeyn jirtay lama helo ma la helo daas waa aan u wareystaa wiilka ama gabadha iigu dhow inaan dhigta soo qabto waay aniga wara rabaa inaan sameeyo focuskiis waxa waay mowduucan waa laga hadlaa hadda mowduucan jaamac aqoonyahana si fiican uga hadli lahaa xasan si fiican uga hadli lahaa moogtahay ma raadis ma wuxuu ku leeyahay dadkii waa la waay waqtigan wuu ihayaa aniga marka daas waa qofkan u wareys hadda qofkan wuxuu sheegana ma la laba saacadood uu naga lumay maanta dhan daawanayna moogtahay 3 hours 4 hours qofka mid kale waxa uu la yaabay warbaahinta sida ay u saameynayso dhaqanka bulshada waxa arkaysaa 24 saac arrimo siyaasadeed ay falanqayaan warbaahinta arrimihii bulshada kale lama soo qaato oo caafimaad leh oo horumar leh oo jid leh oo beer leh oo wax soo saar leh ummadda adduunka ilaahay waxa la falanqayaa gaajada wadanka ka jirto iyo meelaha qiimo hadda xaalada ka jirto
street of xurmisa xiran Soomaa saameynta uu ku leeyahay xirnaanshahaas la falanqeynaya waxaana loo falanqeynayaa ninka geeleyda ee tuula X joogo soo u saameeyay in la isweydiiyo ahayd moogta aad iyo aad waa la isku dayaa laakiin de figure ma leh dhibca ma leh nutqada ma leh number ma leh wax ay leedahay ma leh qof un baa iska hadlaya generiga wuxuuna rabaa sideedaas in loo qaato siyaasiga dawladda xigaya maadaama wax ugu badan ay warbaahinta focus siyaan ay tahay siyaasad wuxuu isku dayaa inuu ka jawaabo arinta siyaasiga bas laakiin haddii aan lahayd sida sheegaysid warbaahinta laftarkeeda dhinacyo kale sector kale ay focus siin lahayd wax laga weydiin lahayd la soo jeedin lahayd qofka siyaasiga laftarkiisa wuxuu la imaan lahaa baraha bulshada natiijooyin warbaahinta la soo istaagi karo adeeg bulsho ahaato waxyaabo badan wadanka ku saabsan ana waxa xasuustaa mar qof siyaasi ah ee maanta hadda siyaasadda Soomaaliya caanka ah baa mar intaan wada fariisanay wuxuu soo jeedin aad u fiican ahayd wuxuu yiri aniga waxaan rabaa inaan fursad idin siiyo oo aysan ka jirin warbaahinta ka jirin maxaa waaye fursadaas waxay tahay wax kasto xamasho siyaasadeed oo gadaashiis ka jiro inaan miiso soo gudbinaynaa dad kale ka soo qaadaynaa ila wareeyadii kale ka soo qaadaynaa laakiin waxa idin siinaynaa fursad inaad baahisin shacabka Soomaaliyeed wax ka duwan waxa la maqlo siyaasiga meel safray intuu aaday hebel la dagaashan waxaan wax ka duwan oo shacabka laftarkiisa maxaa mustaqbalka idin soo socda wadanka because wadanka hadda Soomaaliya waxay jirto bulshooyin international community laha oo saameyn ku leh xalana deganaa jigan waxa kale oo jooga dawladda dariska jiraan dawladaha caalamka laftarkooda danay siyaasadda Soomaaliya ka leeyihiin hadda waatana Somaliland iyo Israa'iil iyo waxba socda arrimaha soo socda falanqeydooda xogooda sirta ah majaalista Soomaaliya banaankeeda waxyaabo looga sheekaysto wax heli karo wadin siinaya laakiin baahiya shacabka Soomaaliya bara inay wax ka duwan oo wax u taraya siyaasadda xageeda oo ay dhigeysan karaan tusa aan ka waxyaabo aysan ahayn siyaasi inuu siiyo wariye lacag siiyo uu soo amaano ama mid kale caayo ama mid kale isu jawaabaan yani revolution ka sameeyay warbaahinta marka fikradaas waa tan su'aasheeda ay tahay Soomaaliya wali waxay u baahan tahay siyaasadda laftarkeeda xogaha laga helo informationada inay wax ka duwan waxay maalinlaha la qabsadaan hadda dadka siyaasadda ma jeclaba sababa loo daawado entertainment maxaa waaye ilaa warka warbaahinta siyaasadda looga hadla maxaa waaye wararkii dagaal dhacay siyaasi wala asaas noqon maxna u sameeyeen bulshada saahida sheegays warbaahinta maba way macna tirana waxa intaas ku dheer alla waxa jirto rag arin aad u fiican sameeyay tusaale ahaan qoryahan la yiraahdo dhaxal reeb oo kale waxay isku xiraan jiilkii hore iyo jiilka cusub barnaamij waxa jiray anigoo yar baa shirkii carta waxaan ka maqli jiray idaacada shirkii asaasay beelibalato adi just idaacad ima quseen markaas laakiin 2001 meelahaas shirka saameyntiisa BBC iyo meelaha laga dhageysan jiray waxyaabaha aad ku rabay ahayd meeshaas wax ka dhacay dhaxal reeb oo kale waxaan aad ugu amaanayaa inay warbaahinta horta qaybtaas baraha bulshada ka mid tahay barnaamij waaye bara bulshada leeyihiin kala duwan laakiin waa meel maanta markaad kalixiis aqoon aad qalin buug qaadanaysid waa waxaana la isku xiraa jiilka hore oo dadkii aqoon-yahanadii da'dii hore iyo da'da jiilka cusub la isku xiraaya marka way qorshaysan yihiin mawduuca beeraha rabtaa qof baa arkaysa qofka beeraha barto ninkan professorka jaanis fiican bay u tahay wax buu ka helayaa siyaasiga wax baa laga helayaa marka waxyaabaha aadka uga helay oo aan muddo ku taxnaa macnaha runtii oo xog aanan islahayn waad heli kartaan aan ka helay waxaa ka mid ah sidii shirka carto u dhacay macnaha dadka perspective-yada kala duwan iyo sheekooyinka kala duwan maxay wareysteen marka waxa isbuuxinayo qof kastoo la wareysto wareysiyada ka horeeyay qof kamid ah hebelna wuu joogo leeyahay moogta wuu marqaati kacaya xog waxa helaysaa aruursan history dhameystiran waxyaabaha Soomaalida isku haysatay sida loo abaabulay shirka meeshu ka imid qof Soomaali ah oo dhalinyaro ah oo wadankan meelna uga socon mustaqbalkiisa iyo ukumihiisa iyo wax walba u yaalaan way ku qosaysaa arimaha qaar inaad dhageysatid sidaas si lamid ah baa siyaasiga maanta jooga
waxay qof kastoo da'yar u khusaysaa siyaasiga maanta jooga inuu u dhageysto laakiin walaalow siyaasi la dhageysan karo oo maanta xog dhammaystiran aan ka helaysid oo wax saxa kuu sheegaya waa aad u yiri percentage-ka waa wax yar waa maxaana keenaya asaa isburinaya dee adigana dee qof asagaba isburinaya maxaa ugu soo qaadanaysaa maxay kuu micnaynay aad iyo aad ustaadii waxay ku fariina wataa adiga kala dhaxbax waxa runta kaas oo kala hadda waxay ku fiican waxyaabo aan ku amaana waxa kamid ah sorry waxay ka hadlaan siyaasadii taariikhdii hore siyaasadda dadkii xaadirka ahaa oo markhaatiga ka ahaa oo meesha joogay barnaamijyada ay focuska saaraysay tusaale hadda مثلا shirka carabta oo kale soo u dhacay waxa la isku haystay doodaha siyaasadeed masaalixda dawladnimada Soomaaliya iyo howlahaas dhan ay isku xiran marka barnaamijkaas oo kale waa tusaale wanaagsan oo baraha bulshada siyaasad le ma aanay xataa majaalad kale looga hadlaa majaal kasta looga hadlaa marka waa haldi meesha laga rabay marka dadka bulshada arrimaha bulshada ka shaqeeya arrimaha warbaahinta baraha bulshada ka shaqeeya sidaas oo kale inay u kala baxaan la rabay macnaha qofka tiktokerka ah wiili gabar wuxuu rabaa ha noqday horta wax loogu soo hagaagay inuu jiro meel walba uu taagan arrin kastoo falanqeena siyaasi kasta oo la taagan ganacsi kastuu taagan qofkii marka waxaa isleedahay inuu qofka maxaa ugu daba dhimanaya aniga kanaalkan ama channelkan maxaa iga soo galay maanta dhan scroll down caafimaad daroon baa laga qaadaya moogta TikTok-gii hadda markaad saas u scroll garaysid waxaa hal mar kugu soo dhacaya 30 warbixino oo kala duwan hal mar kan wax kama faa'iidin kan ku xig wax kama faa'iidin kan ku sii xig wax kama faa'iideys laakiin mida ku hakatid male qofkii haddaad maanta ku hakatidna kan ku xigo isla asaga ah wuxuu hadda horka u soo sheegay wax ka duwan ku sheegaya marka xoogoo si bay wax nooga qaldan yihiin ka bulsho ahaan iyo ka farsamo ahaanba sida u qaabaysanna waxba qaldan iyadana de haddana ma arkaysid wasaarado ku howlan arrimahan inay wax ka qabtaan bulshada wax u jiheeyaan shuruucda ay dejiyeen ku amraan ama ku qasbaan in la geliyo waqti iyo dhaqaale ku filan si loo fuliyo ma fahant tan hadda pointiga hadda mesela ku soo dartay dawladda iyo wasaaradahan inay xakameyn sameeyaan ay u noqdaan xindaab waxaas lagu kala saaro tusaale warbaahin si kasta ay xoriyad u leedahay dawladda Soomaaliya waxa u suurta gashay tusaale waagi hore waxa jiri jirtay warbaahintii oo telefishinka in oo traditionalka ahay ama noocii hore wal xakameyn jiray kan waxa la yiri lama xakameyn karo moogtaa hadda dawladda hadda joogto waxyaabo la tijaabiyaa jiro tusaale mara waxaad xasuusatid waxa la xiray account la xiray YouTube la xiray Facebook la xiray platforms la xiray marka dawladda oo kale waxyaabaha ayada laga rabo inay fuliso waxa kamid ah inay samayso shuruuc ay tixraac u noqonaysa dadka oo baraha bulshada ku jira majaalka siyaasiga ha aado iyo majaalka arrimaha bulshada tusaale hadda waayidan ma badna laakiin waayay waxa jirtay sanado tagay waxa jirtay in hataa marar badan warbaahin page dad ay lahaayeen oo saameyn bulshada oo ku yeelanaya laga bixiyay hawada haddana dib loo soo celiyay marka maybe dawladda markaas inta badan diiradu waxay saaraysay arrimaha oo siyaasadda iyo isqabqabsiga iyo aragtida dawladda ay ka qabaan laakiin wadamada qaar waxa jiro in oo ay leedahay qayb dhan oo ku takhasusatay in la dabagalo fariimaha muwaadinka dhageysan karo waxyaabaha oo wacyiga bulshada xakameyn karo waxyaabo badan lagu focus gareey marka hadda tusaale maadaama doodan inta ay maanta u badan tahay dhanka siyaasadda mararka qaar la isdhihi karaa haddii la ballaariyo laftarkeeda awood badan ay dawladdu u hesho inay baraha bulshada xakameyso Soomaali dhihi karo laftarkeeda xorriyadda tacbiirka meesha ka baxayo dawladda laftarkeeda siyaasadda rabtay shacabku sheegi kartaa lama dhihi karo ma yahay waxaan loo dhihi karin waxaa jiro sharciga saxaafadda sharci ma faham dawladdu ma horta dawlad hadaa maqashay waa shuruuc meel taalo la fulinayo wayna leedahay isay u badan tahay qofka fulinayo ma ku takrifalaya mase sidii la rabay uma fulinayo labadaas bay noqonaysaa laakiin sharciga waa jira sharciga saxaafadda sharci laha jiro qodob hadda aan u maleeyo qodobka afraad camal inuu yahay waxyaabaha ka reeban baa ku qoran adiga marka haddaad asalka qof fiican tahay oo anshax leh
oo wuxuu tabinayo warkiisa uu sugan yahay shuruucdii dawladdu dejisay u hoggaansamay shatiyadii iyo wixii laga rabay soo qaatay de bulshadana hadhow way ku difaacaysaa moogta ninkan sharci laguma haystaa hal sii daaya lagu dhihi karaa ama accountkiisa loo furo waxbaa la dhihi karaa laakiin shuruuc baa jirta for example page baa furatay hawl baa qabsatay laakiin propaganda iyo been abuur aad habeen iyo maalin ka shaqaynaysaa dabcan dawladda awood bay u leedahay inay xirto waxarka sharcigaana u banaynaya sharcigana mararka qaar sharciga ma aqaani naftirkiisa dambi ah soo moogid marka inaad horta in la fahmo waa qofkan wariyaha ama go'aansaday inuu bulshadu wax gaarsiiyo hal dhinac loo feeranin wanaaga iyo niyo wanaag iyo wuxuu asaga raba loo feeranin maxaa xeerar amba shuruuc aan ku tuman karaa intaan wadada aan hayo inuu isweydiiyo waa waxaan inay jiraan waa wixii inuu ka waantoobo waaye oo ka fogaado tusaalehaan been abuurka lama ogola diinta islaamkana ma ogola dhaqankeena Soomaaliyeedna ma ogola dadnimada iyo waxa bini'aadanimadana ma ogolaba war been habeen maalin ina sheegto ko labo waxa rabtin ina iska sheegto ma ogtahay mar been aad sheegay hebel baad ku been abuuranay hay'ad baad ku been abuuranay deegaan baad ku been abuuranaysaa marna theory iyo waxyaabaha adiga meel ka keenta aan la ogeyn baa iska sheegaysaa been abuur lagu daro waa been hawaas caadi ah noqonaysaa waxa intaas ku dheer buunbuuninta warar waxaa jira inaan la sheegin ay bulshada ku nabadgelayso tusaalaan laba beelaa isdagaala qofka kaliya ee bulshadan dhageysatana adi waay oo ceelkaasi tuuladaas meeshaas jooga nabadeynta iyo odayaashii waxay ka shaqeynayeen iyo bulshadii deegaanka waxay ka shaqeynaysa ayaa hal mar waxaa daba mari kara hal warbixin oo adiga soo dirtay waxaa laga yaabaa inta meelahan ay ka dhacdaba duleeladan ay ka dhacdaa habeen maalin ay dhacdaa dad baa Soomaalida weligeed isdagaalis waana wax la abuuray ilaa hadda isaysatay hadbana meelaha qaarna waa lagu kala xoog badnaa laakiin waxa hadda nagu cusub propagandada been abuurka faafinta xogaha aan saxda ahayn isku dirka qabiilada qofkii wuxuu asoo wariye ah hal mar wuxuu ka wareeganaa qabiilkiisa maadaama meesha lagu taabtay buu hal mar wuxuu u rogaa wixii kale dhinac kale tusaale ahaan hadda wariyaala jiro oo markii deegaanada ay ka soo jeedaan wax laga sheegay 100% difaacooda 100% yahay hatta 50 ma masaajid in waxa u malaysaa oo ay gala amal looga ceerinayo oo soo qeylanayo deegaama aysan shughul ku lahayn markii wax laga sheegayna 100% propagandada laabay macnaha simply because lacag yar ay qaateen ma isweydiinayo war meeshan maxay u kala duwan dad Soomaaliyeed degan bulsho Soomaaliyeed joogto dadka aad bari rabtid waa inaad hogaamisid ama aad rabtid inaad qofkan aad iibinaysid inuu fiican yahay ka iibinaysid meesha u socdo waa inuu dadka wax u qabto tusaale hadda مثلا xakamaynta oo baraha bulshada dawladda Soomaaliya tusaale hadda mudooyinka ma badna laakiin saxday sheegaba waqti ay jirtay in la tijaabiyay in qaarkood hawada laga saar qaarkood soo celiyo laakiin badana inta badan kuwii laga bixiyay xida wax badnaayeen kood dawladda dhaliilsanaa ayada yani u arkaysay inuu bareeshar ma waxaan ku rabaani waa ku bilaab moogta sharci ma jira waa jira ku takrifal aboodeed ma jirtaa oo cid la rabana wax ma laga xiraa cid kalena ma loo deeyna qofka meesha joogay ku xiran kuwii qabayl isku diray way joogan haduu qofka meesha joogo qof daacad ah oo sharcigan cuskanayo oo de ummadda si siman ugu hagaaya moogta wuxuu ugu hagayaa wixii propaganda faafinay hal mar albaabka wada xiraa kan beeshiisana inta reebo kan beelaha kale oo ka soo horjeedana ma xiraa anigu aan ku sheegay qofka shaqada qabanaya ku xiranta mid anshaxa ilaa had way jirtaa tusaale hadda TikTok live loo soo galaa qabaa'ila wax looga sheega dada jiraanba oo millions daawadaan intay soo fariistaan qabaa'il Soomaaliyeed tay maal habeen caayaan account-kooda waa la yaqaanaa hatta magaalooyinka ay joogan waa la yaqaanaa cid oo bareeshar saaraysa ma laha keeni iyo waxaas ay u baaba'een waxa arkaysaa qof dhan oo lagu leeyahay waa malaaq waa suldaan waa deegaan uu jooga amaanta baraha bulshada ka soo hadlaa markaas wuxuu ku hadlayaa wax ilmo yar ee 5 jir xataa ku hadleen markaas wuxuu ku leeyahay doobkii ama nabadoon hebel waa adeer nabadoonow soo lama hadlaysid Soomaali qaybeeda kala duwan horta ma hal qolaa la hadlaysaa wax la xeerayso ma jiraan dadka hadalka soo hayndaab ma la soo xuduud ma la shuruuc soo ma la
dhaqankii iyo bulshadii iyo ummaddii aa u hadlaysana waa caybeynaysaa oo marka qaar waxaa la dhahaa no reer hebel hebel soo duubu ma aha naga daaya lagu dhahaa mogta aad iyo aad annaga marka haddaan hadalka waa ku bilaabay saaxiibow waxaa naga baaba'san oo naga hadlaysan wax aysan ahayn inay naga halaabaan anshaxeeni bulsho ahaan wax badan ka qaldan yihiin dhaqankeena wax badan iska bedelay qabyaaladiya wax badan ka soo kormartay danaysiga khaaska ah iyo alyoomka fiiri haddii la dhimanayo dhareerka waa la iska tiraa soomayn aad iyo aad war qofkan intuu dhihlaaniyo aniga maanta been ma sheegi karo wixii la raba hala sheego gaajaa u dhinto laakiin bulshadan dulmiga lagu hayo waa sheega inuu dhaha meesha laga rabay buu caawa waxaa soo salaamaysaa wasiirka ama madaxweynaha iska daawley waa arrimahaasa kuga dhici kare dantaada ilaaso dadkaasaa marka waxaa lagu leeyahay waxay horboodayaan ama bulsho hagaaya ama toosinaya runtii warbaahinta qaybo badan oo aad u fiicanaa jiro oo baraha bulshada siiba baraha bulshada isticmaalo Facebook YouTube Twitter TikTok waxaan isticmaalaan aaday isku xakameeyaan aaday u tafaftiraan warka aaday u jarjaraan aaday wax nuxur la inay soo gudbaan isku gudayaan laakiin haddana marka qaar waxaas aad jarjarayso oo aad celinayso aad reebayso xaq loo lahaa in la maqlay ahayd runta inay taas tahay Allahu a'lam moogta bulshadan masaajidku ma jirto oo qof kasta kama rajaynaysid inuu weyse qabo oo tukado moogta bulshada horta waxyaabaha Soomaaliya oo la yaabana waxaa kamid ah dad dhan oo rabo maaragtay taariikhdooda xun dhan inaan la sheegin ma laga hadli karo youtuberada Soomaaliya ma adduunka taariikhda xun horta adduunka taariikhda xun waa la isku raacaa inay taariikh xun tahay xitaa horta adiga ma ogtahay adiga ma sheegi karta inaa ani taariikhdeeda xunta anna ma kuu sheegi kara inaa taariikh xun leedahay laakiin dadka waddanka amuurihiisa gacanta ku haya aa la rabaa inay dhahaan taariikhdan waa taariikh xun inta noo dhig ma burburinayno tusaale noo noqonaysaa Soomaali ma rabto in taariikhdeeda xun dhan la soo hadal qaado ka soco aa lagu leeyahay intee loo soconayo ka soco waxay keenaysaa wax walba la soconayo meel loo socdan lama oge in la isqabto Soomaa horta warniyo waxaan anaga cibar meeqa kitaabka Quraanka ku arkaysaa in la socdo oo ummadii hore sidii loo halaagay in la soo fiiriyo qoom hebel meeqa maqlaysa in lagu cibra qaato waa anaga marka waxaa lagu leeyahay hebel ha soo qaadin waayo wuxuu ahaa regime buu ahaa dictator buu ahaa intuu ka dhacay okay good dictator fiican ma jiro anaga iska leh Soomaali waaye adaa iska leh adaa ku abtirsado adiga joogno wuxuu shalay biyaa meeshan yaala way xumeed inta noo dhig sida loo dhahay aan fiirino waxyaabaha xadgudubka kamid waxaa kamid ah Soomaalida baraha bulshada ama bulshada ka shaqeyso inuu anshaxayna qof dhintaa la caynaya مثلا qof dhintay xaq waxa loo leeyahay in loo doodo magta qofka dad waxa jiro mas'uul laga yahay meedka qofka dhintay oo adiga qaraabadaada ama qofka dhintay inaad dhihi karto sorry saaxib qofkaas dhintay wax kama sheegi kartid waxaan wax ugu sheegi karin oo ugu aflagaadeyn karin hadda cid ma iska ka celin kara baad magta asaga fahant waxa kale oo arkaysaa qof ama rag iyo dumar wuxuu rabaa ha noqday qof isbitaal ku jira qof iska saaray oo maanta awood u lahayn inuu microphone qabsado iska ka dhaciyo marka anaga anshaxeena wax walba waxaan ku xirayaa bulshada anshaxeeda wax iska bedelay de haduu anshaxaaga xumaadana cid rabta wax ku sheegayso sidii la rabaan lagu sheegaa meeshii rabaan lagu soo marinaya mawduuca hadaan u soo laabto aan dhaho maxaa naga qaldan horta intaas naga qaldan maxaa la sameyn karaa aan hal mar boobo waxaa la sameyn karaa waxyaabaha qosolka aan ka tagay waxaa kamid ah nin mas'uul baa magaalo imaanaya kaanama in magaaladan qof wax og ba joogin wuxuu diyaar soo saaranaya tobaneey kale oo aan dhihi karo influencers ah dad saameyn ku leh baraha bulshada tobaneey kale soo warsanay soo kaxaysanay tikadu ka bixinaa soo kaxayna magaalo keenay magaaladan aaway influencerkeeda dadkeeda aaw wax ma oga miya influencer ma qabaa miya dad ma la miya waxa xuquuqda ah qofkan siisay uma qalmaan miya wax lagama dhageysanayo miya ninka deegaanka joogo habeenii maalin bulshada ay dhageysanaysay ma dhiirigelisid asna wax siisid kaamiro u keentid
channel u keentid internet siisid mobile vip mobile oo siisid maxaan ku dhahay smartphone fiican ma siisid soo bulshada ma ku dhiirigelisidoo dhahdid niyo deegaanka adu ka dhiman laayahay arimahan saa u soo gudbisid arimahan u soo gudbi ma dhahdid halka ani ay igu keenaysid qof bulshada aysan u aqoonin inuu influencer adigu ma taqaanid anaga ma naqaano mogta wuxuu yahay wax kale waa qaybaha kamid tahay ku tagrifalka ama arimaha wax ka saxida u baahan waa